kulankan cashada ahaa ee uu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Bihi Cabdi uu sameeyay martida ka qayb galaysa sanadkan bandhiga buugaagta caalamiga ee Hargeysa ayaa ujeedadiisu ay salka ku haysay soo dhaweyn maamuusid iyo in indhahooda ku arkaan xaaladda dhabta ee jamhuuriyadda Soomaaliland. Dr. Jaamac Muuse Jaamac gudoomiyaha xarunta dhaqanka ee Hargeysa oo halkaasi ka hadlay kaasi oo si diiran u soo dhaweeyay martidii sharafta lahayd ee ka qayb gashay kulankaasi. It was 16 years of what I call resistance of young people who wanted to resist the label that has been given as an oral society. Dr. Jaamac waxa uu si qoto dheer u faahfaahiyay aasaaska xarunta dhaqanka ee Hargeysa siba qabashada buugaagta caalamiga ee Hargeysa iyo maraaxilka ay soo martay. Waxa uu mahadnaqay dhammaanba dhalinyarada kala duwan ee reer Soomaaliland ee sanad kasta ka qayb gala bandhiga buugaagta caalamiga ee Hargeysa. aqoon-yahan Lamumba oo kamid ah martidii ka qayb gashay kulankaasi cashada ah ee madaxweynaha Soomaaliland u fidiyay martidaasi ayaa waxa uu yiri visitors from different countries and the young men and women who have arrived here from different parts of Somaliland. Let me on behalf of those who are here say how glad I am soo booqdayaasha ka kala yimi wadamada kala duwan ee caalamka iyo dhalinyarada ragga iyo haween kale ee halkan yimi kana kala yimi meelaha kala gedisan ee Soomaaliland. waxaan doonayaa inaan idhaahdo sida aan ugu faraxsanahay cidda aan ahay iyo inaan ka qayb galo bandhiga caalamiga ah ee buugaagta ee Hargeysa. waxa uu dhalinyarada iyo halabuurka uu kula dardaarmay inay ka qayb qaataan horumarka isagoo u soo jeediyay inay halkaasi ka sii wadaan. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Bihi Cabdi ayaa martidaasi ku soo dhaweeyay xarunta qasriga madaxtooyada ee Soomaaliland waxaana uu yiri It's my great pleasure to welcome you in the Republic of Somaliland and to the biggest art and cultural celebration in the waxay tahay farxad inaan halkan idinku soo dhaweeyay idinka gaar ahaan jamhuuriyadda Soomaaliland taasi oo aynu dabaaldegayno xarunta ugu weyn farshaxanka dhaqanka iyo soo bandhigida buugaagta caalamiga ee Hargeysa. I would like to thank the organizers of creating this annual platform that has showcased Somaliland's true color, which is welcoming, peaceful, loving, and people of artistically rich culture of Somaliland. waxaan jecelahay inaan u mahadnaqo qabanqaabiyaasha iyo bahda halabuurka ee ka qayb galaya bandhiga buugaagta ee caalamiga ee Hargeysa taasi oo rajeynaya in halkaasi ku soo bandhigi doonaan doodaha jamhuuriyadda Soomaaliland kuna tusi doonaan martida ka qayb galaysa kulankaasi muuqaalka runta ee Soomaaliland leedahay taasi oo soo dhaweynaysa tilmaamaysan sida shacabka Soomaaliland iyo jamhuuriyadda Soomaaliland u jecel yihiin nabadda dadkeeduna u yihiin kuwa qani ku ah hibana u leh farshaxanka dhaqanka iyo halabuurka noocyadiisa kala duwan. ugu dambeyntii ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu mar kale halkaasi ku soo dhaweeyay dhammaan xubnihii kala duwanaa ee ka qayb galay cashadaasi oo ay ka mid ahaayeen safiiro, abwaaniin, qorayaal, cilmi baadhayaal iyo xubno kale oo ka kala socday qaybaha kala duwan ee arrimaha bulshada. ugu dambeyntii ayaa ururka qorayada Afrika waxay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland halkaasi ku gudoonsiiyeen bilad iyo shahaado sharaf. أحمد سكي داير عسان ورباهين تقرنك قصر مدحتوية سومالان إيه هرقيسا.